soo dhawo midkan gurigiisa dib ugu soo laabtay kadib dhiis waxay qabteen hooyadiisa oo si xul oo dhaqmaayo hooyada markay ogaatay in baak la soo furo maxalleysay waxay u soo taagaysaa warqadii ku qoran tahay waxba ha dhihin isqari isla markii waxa meesha imaanaya xaaska asaga uu qabay waxaana ka fahmaynaa hadalkeeda inay rabto in cidiyaha loo maray cilaan isla markii midda maamadu ku baashaalaysa waxay leedahay maxaa ka welaysaa midaan wiilka qaba dhashaa ku marinaysa dhiibaayada ku marinaysa midda markii hadalkii maqasho aad u farxaysa waxaana bilaabaysaa hooyada dhashay ninka qaba inuu dhiibato qalinka cilaanka inay tiraahdo cilaanka si qurux badan igu maray cidida laakiin maamada aad u daalan tahay maadaama maanta dhan aysan u fururtay waxay bilaabaysaa markay qalinka furtay inay markay cagta ugu hadlayso ayadoo aad ugu jeesjeesaysay waxay ku leedahay maxaa ka qaldan habar yahay cilaan ku marinayso cunug afajir xataa uma marayay laakiin maamada waxay isdaysaa inay ka raalgeliso kuwan waxay bilaabayaan inay aad ugu kheeliyaan ayagoo ku dhahay gurigan anaga ayaa ka talino inta joogno waa inaa hadda waxaana si fiican ugu qabaneen gurigaas kaga tagtaa anagana ayaa meesha ku hareen ay wali sidoo murmaaya waxaa meesha soo galay wiilka ayada qabay hooyadan ay dhashay isla markiina wuxuu ku leeyahay aniga mar rabo in wax la sheegay wax walbana kor ayaa kala socday ayadana waxay bilowday inay calaasho ay tiraad ninkayga saa wax u malaysid ma ahan hooyada ayada dooratay inay wax walba gurigan ka qabato abaar ay murmaayeen mid la qabo la taajileen bilaabayso waxayna ku leedahay ma waxa rabtaa aniga xaaskaada cunuga caloosha ku jireen banaanka noo saarto gurigan laakiin asaga marka warkaas oo maqlo cunuga caloosha ku jire oo ilaa wax walba tacdiid hooyis loo geysana wuxuu bilaabay inuu yiraahdo ma filayeen in cunuga caloosha ugu wado aadaan ka raalgelina waxa kugu sameeyay mar hadda cunuga caloosha ugu wado ma aha inaa kugu khayliyo waa inaan meeshaas kaga tagnaa aniga hooyadeeda habarta meesha ka soo wada way kasoo tagaan laakiin labada goor ku ana marka jilinkooda hirgal waxay bilaabay in aad u badbadan ayagoo aad u faraxsan abaar kadib midkii banaanka mobilka hadlaya maamada hooyadiisa waxay soo bixinaysaa qashin bax ku jira wuxuuna ku leeyahay qashka maxaa ku soo dhiibay guriga qashinkan adiga ma aha inaa ka qaaday waa inaa ayaga ka soo bixiyaan laakiin waxay leedahay ayaga ayaa igu qasbay inaan soo qaado qashinka hooyiska dhiga wuxuuna u soo xareeyaa gudaha guriga soo aad u xanaaqsan wuxuuna u maanaa midda qoomida dhalata oo TikTok video iska duubayso marka soo galna wuxuu weydiinaa qofta hooyadu soo dhiibtay qashinka laakiin midda way iska dhitiraysaa waxay ku leedahay hooyada ayada qashin qaaday maxaan iga galay isla markaa wuxuu bilaabaa mobilka video ku duubayso inuu ka soo dafo haleeshiga sababta hooyada waxaan lagu sameeyay tacadiya laakiin ayagoo sida murmaaya gadaal waxa ka imaanaya midii oo qabay markay fahmayso labada booq ka dhaxtaaga waxay bilaabaysaa jilinkeeda inay meesha ka bilaawdo kursiga fadhiisanaysa waxay leedahay cunuga caloosha ku jira aad iyo xanuunayo waxa uu maleynaa inuu cunuga dhimiro laakiin midana waxay ku leedahay soo xaaskaada biyo cabto soo orodtay caloosha ugu reesato asagana waa kana maskiin waaya isla markaa soo hadlino meesha ka soo taga marka asaga meesha ka taga hooyisa albaabka soo galayso waxay bilaabaysaa inuu mobilkeeda video ugu duubto ayuu sheekaysanay aniga shirkadu waxa ka fahmaynaa mar walba ninkaan fahmo uurka beeta uu sheegayna asagana marka uurka maqlo waa naga qaleena oo wuxuu naga qaadi kara ma lahan laakiin abaar sheekaysanay waxa arkayaan maamada baak taagan oo video ka duubayso way ku qeelaan laakiin maamada markay artay inay fashilantay ma cabsanaysa hore soo galaysaa waxay u sheegaysaa kuwa inay gurigan ayada xaq u leedahay wiilkeedana oo degan yahay wax walba gurigan ka dhacayna ayada ay mas'uul ka tahay hadan ay videoga duubto wiilkeeda gacanta u gali doonto waxay ku leedahay ogaad inay gurigan aniga aan ku dambeeyo doona adinka iskaga bixaysiin abaar kadib waxa soo fadhiisanaa miis qada ayagoo meesha ku wada qadinaya maamada waxay bilaabaysaa inay videoga ay duubto wiilkeeda u darto video markoo midka dhameysto waxa arkaa kuwan wuxuu sheegay inay been tahay uur been ay sheeganaysay waxa bilaabay inuu ku yiraahdo gurigan labadiina masii joogi doonteen waa inay sida ugu dhaqsiyaa bas kaga baxnaa gurigan waayo waxa xaq u leh aniga hooyadeeda isma kuwa meesha kaga tagan hooyadiisa wuxuu ku leeyahay deji guriga hadda kadib adiga ayaa ku noolaan doono qof dambe adiga wax ku geysanayn ma keeni doono video halkan ku yahay asxaabta muuqaalka loof noo saara